dhalinyarada iyo aqoon-yahanada degmada Xudur ayaa soo abaabulay kulan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool, gudoomiyaha degmada Xudur iyo marti sharaf kale oo kulanka lagu casuumay. kulankan oo ahaa isxog waraysi ku saabsan sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa isla markaasina ay ku soo dhaweynayeen wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Ali Dhuuxa oo booqasho ku joogo magaalada Xudur ee gobolka Bakool. ugu horeen waxaa kulanka ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bakool Cumar Cabdullaahi wuxuuna sharaxay qorshaha ay ka leeyihiin kulanka. oo ku maantanayso coinayha sada boorka buka gornisim araga haytaan kulan oo isxog waraysi waana soo dhaweyn oo waxyaabo badan in iska jara meel faday kulanka inta ku hadala horumarada oo dhalinyarada qaabka la ka sameeyay kor oo meel eraayso talada ku jeediyo la faday fikir la ku jeedi fikirkaas oo wasiirka fadhiyo gudoomiyaha degmada fadhiyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka fadhiyo madan fikirkaas meel faday fikir oo macquul ah qaabka dhalinyarada degmada Xudur mise dhalinyarada Koonfur Galbeed la horumariyo faday anti fikir oo dhalinyarada oo aqoonta leh oo kan fadhida ha ku bato la faday. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in wasiirka oo dhalinyarada su'aalo weydiinayso goobjoog u ahaado. iyadan ka faraxsana ani wasiirka oo ka maana su'aalo la weydiyo unu goobjoog ku hano dhalinyarada reer Xudur su'aalo weydiin iyadan dhawaayana suuna way baa ka maadnaqay suusan ogolaaday أنا سؤال ويدور لأن يرديتيس وزارديتيس ده كتير سنة سؤال ويدين عن ديار جروي قاف وصل كمان نغير وهانتي وزير الأنساس ما تطبيق شيء أنا توا ميرو بلشيد يوم توني سكوي كوبس ده ولا أزمة معنا كشوا هذا فدي رنتي لان أفتح عنه والبعض معنا دولة كده جري قاف بعض والبعض أجو رنتي أرنتيه سوسان كديار جروي كمان نغان inta kadib waxaa la gudagalay su'aalo la xiriira horumarinta dhalinyarada isboortiga iyo siyaasadda dhalinyarada Koonfur Galbeed oo wasiirka la weydiiyay doorka kiikan may yani ku qabada doonto ama maykinku ka aadan maadaama aad ku reeti binooni siidi una kiikan maykinku ka aadan dhaqankayna iyo una haduu ku tabaan hadana una binooni in ciyaar korna ofisiye in furu doonto sheega si aan dheegay yani dhanka shaqaalaha inay badiyo irlahay way مايكوز جريني ما يدرس ولا نيم بنا وكلي أنا اللي واد أذكره لي نجت تنقلت عليه لما ذوقتها ماي بلان إنين هايت أو يعني أو بتبادئ أو يعني أو سيكونفيس ما إنين هايت وزير ماكين قرشة إنسان دالين يراد أو كمد إين شباب كجرا ماكين قرشة دالين يراد سي سدب داتشور رينوفيكيشن لنقصوبي أو دالين يراد سي دبعت أمتيو كهان لنقو بتبادي وزير كنا إن ويبا ويديها يعني ما يعني أو ندير جرياسة كهوين أهم ما ندير جرياسة أنت سديون هرمر إنه كدير لهاين. دامن قبلت دق واحد برشيل كهلا إن قبل كبكول مكجرت دق دسي واحد برش كتلان يرا أهم هذا ما يكون كوجو آدم ما دام دق واحد ولا برش دام بنانك ليلة كيف سدوا قبل كبكول هنديران. حضور ما دام أو كجرت بس اللي بالانقاضي وزاردي أدينا مداس إنهاين هلكن ريتكم كويتي إن ما يكوهايت ورقة ما يبغاه إني يكوهايت أنت كلاماتي بس دي ما بجرت أنا يربضن أول خبر دي هم إن لأنتي ديجان كيش والبضن كفوليان ديجان كلهم يكون فرق البيت إن ولا هذا من قبل هذا ولا كل أنت كهذا يعني مستوى أو أدونك أنا دير سيانا كذا ولو برهنتكي أماني هدفك قوان كذا هدي أو هاي أنت عديم دحين أصل جرت أنت يوث سنتر مقالة حضور كرسة تأسيت إن إيدي أنا هنروح ولا بفضلنا سين كرسة بدنا أنت لك فرم دام بعهذا ربته إنه نهاية ديجانك أنت له العرون الله يرهنتي إنه بعهذا أنا إيش إنه جود بيانا أركت أنا وزير كوزارة dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Ali Dhuuxa ayaa ka jawaabay dhammaan su'aalihii la weydiiyay wuxuuna dhalinyarada reer Xudur ku amaanay inay yihiin dhalinyaro firfircoon oo kaftankooda aad u soo jiitay wax alla iyo wixii wasaaraddeedu quseeyo waxaan ballan qaadayaa gender balancing inaan ku dadaalo ana gabdho badan dhalay ana leega adag yahay waxaan ballan qaadayaa in aan idin badiyo shaqada adinka idin kordhiyo adinka waxaan laga rabaa inaadan wiilasha colaad u qaadin walaalihiin waaye abayaashin waaye adinka idin la dhaseen laakiin xuquuqda waa idin badinaynaa
farsamo waxtar leh lacag u curin karto dowladda canshuur siin karto dalka horumar gaarsiin karto isla markaasna waxaan rabnaa inaan 3 gobol iyo 18 degmo inaan ka hirgelino xarumo farsamada dadka lagu tababaro oo la yiraahdo TVET centers annaga oo la kaashanayno wasaaradaha cross cutting-ka nala leh waxaa la rabaa wasaaradda diinta iyo awqaafta inay ka yeelato inay wacyi geliso wasaaradda amniga waxay ka shaqeysaa sidii loo soo celin lahaa dhalinyarada oo loogu soo bilahay dhaqan celin wasaaradda shaqo abuurka waxay ka shaqeysaa dhalinyarada sida shaqo abuur loogu soo bil lahaa oo aysan shabaab u aadi lahayn marka waa sax annaga waxaan ka shaqaynaynaa in dhalinyarada marka ay helaan waxyaabaha priority-ga oo ay wasaaradda u baahan tahay dhalinyaradu waxaan kala dagaalanay arrimaha inay aadaan shabaabka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin inay helaan waxbarasho tayo leh wasaaradda waxbarashada oo wasiir madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaran uu daba taagan yahay oo wasiirkeeda la yidhaahdo kolkooliyow wuxuu madaxweynaha kala shaqeeyaa sidii iskuulaad iyo jaamacado tayo leh loo soo gaarsiin lahaa gobolkan iyo degmo walba deegaankan ku taallo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in dhalinyarada ay u baahan yihiin shaqo abuur isla markaasina wasiirka ku amaanay dadaalada uu ku bixinayo horumarinta dhalinyarada kooyowkaadan in koyti eedan ka faraxsagna walwiina gobolka ka kordhiyay dhiirigelin abaabul kicin bulsho intamba tan lama dhalinyarada may ku sugaasay shaqo abuur ku sugaas maadaama aad ku shaqeyso horumarintii dhalinyarada ku shaqeeyay gabagabadii kulanka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa la rabaa afkaartiina iyo ra'yigiina iyo aragtidiina inaad ku soo gudbisiin iyada oo wanaagsan waxaana laga rabaa inaad deegaanka u duceysiin ducada Ilaahay lagama quusto waxaa laga rabaa walaalihiin qaldan ee la marin habaabiyay ee shabaabka jiro inaad la hadashiin qalbiga uga duceysiin afka uga duceysiin waxaa la rabaa inaad madaxweynaha u duceysiin waxaa la rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo madaalayaasha ah oo aa ogtiin intay mushaar la'aan ku shaqeynayeen inaad u duceysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa kuwa hadda duurka taagan ee buuraha saaran inaad u duceysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa inaad tiraahdiin Soomaaliya ha toosto Soomaaliya gacmaha isqabsato Soomaaliya ha guuleysato Koonfur Galbeed ha guuleysato adinkana guuleysta